Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan arkaynaa saddex shay oo lagu dhigto research-ga marka la data la analysis gareynayo lagu shaqeeyo. Waxaan halkan ku arkaynaa mean, median iyo mode. Mean waxay ka dhigan tahay average-ka tirada guud oo la isku geeyo oo loo qaybiyey number-ka uu yahay ayaa mean la yidhaahdaa. Median-kuna waa tirada guud number-ka dhexe ama number-ka dhexeeyaha marka tirada badan iyo tayar ka u dhexeeya la yidhaahdaa median. Mode-kuna waa number-ka soo noqnoqda inta badan. Markaas sida loo shaqeeyo arkaynaa average ayaan leenahay mean-ka markaan shaqeynayo equal to average. Kadib tirada guud ee data aan haysana wada dooranana enter ayaan leenahay. Enter markaan idhaahno wuxuu noo soo saaray natiijadii average-ka ama mean-ka ayuu noo soo saaray. Median-ka saan u shaqeynaa number-ka dhexe equal to ayaan leenahay wuxuu u dhigmaa number-kan kala bedelina labada tira maadaama isku mid tahay in kala bedelina median equal to baan leenahay isagana median markaan qoro waxaan wada dooranaynaa data guud enter ayaan leenahay double click ayaan leenahay kadib waan wada dooranaa enter ayaan leenahay computerkeena anagoo isticmaalayno enter markaan idhaahno kadib wuxuu noo soo saaraya number-ka u dhexeeya tirada badan iyo tirada yar number-ka u dhexeeya ayuu noo soo saaraya. Mode-kuna waa number-ka soo noqnoqda marka 87daas 44 iyo 50 iyo 90kaas iyo 250 iyo 210kaas ayuu u dhexeeya. Mode-ka number-ka soo noqnoqda sida aan u shaqeyno mode-ka waxaa la yidhaahdaa tirada badan amaba soo noqnoqda hal uu noqon karaa laba uu noqon karaa ka badnaan kara. Markaas aan u shaqeyno waxaan leenahay equal to mode ayaan qoraynaa. Mode markaan qorro double click ayaan leenahay mode-ka noo soo baxayo kadib tirada guud ayaan dooranaynaa dhammaan sida u dhan tahay. Mode-ka sidaanu hore u sheegnay waa number-ka soo noqnoqda si loo helo ayaa loogu shaqeeyaa. Wada dooranaynaa enter ayaan leenahay kadib 44kaas laba jeer soo noqday ayuu na leeyahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa ka korka 44 iyo hoos 44. Aad baad u mahadsantihiin. Habeen wanaagsan ayaan rajeynaya. Follow soo dhaha.